السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان مامكي معلمينتا انت ماشي كسوغان عنكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa horta mahad Ilaahay baa u sugnaatay Allah ay waafajiyay inaan halka gaaro alxamdulillaah rabbil caalamiin isaga ay waafajiyay anu dadaalkan lahaa laakiin waafajinta Allah ay iska lahaa. Secondly waxaan u mahad celinayaa waalidkay iyo macallimiintayda runtii ma kala reebi karo labadayda waalid midna waa midka jirka ii dhisay midna maskaxda iyo aqoonta aan soo galiyay amaanta meeshan ku gaaray hooyo iyo aabbo iyo walaalo dhamaan waan u mahad celinayaa oo ila soo garab taagnaa dadaalka iyo dhiirigelinta. waxaan kaloo u mahad celinayaa macallimiintayda maamulka iskuulkayga Ustaad Maxamed Caamir Samatar oo dadaal badan ku bixiyay saa meeshan u gaari lahayn dabcan iskama aanan gaarin meeshan waxaan ahayn arday dadaal badan la soo galiyay arday waqti badan lagu bixiyay waxaan ahayn arday si yaani meeshaas ay u gaaraan aad loola soo dadaalay waxaan leenahay abaalkiina kulli ma gudi karo intaas aan sameeyo waxaan u maleynayaa inay ahayd qayb kamid ah abaalkiina inaan guday laakiin ma wada gudi karo waxaan leeyahay mahadsantihiin maamulkayga macallimiintayda oo yaani anigu iskuulkan waxaan dhiganayay laga soo bilaabo klaaska afraad dugsiga hoose ilaa iyo form 4 ayaa uga baxay dabcan waxa jira macallimiin qaybtood dugsiga dhexe ilaa iyo hadda waxay soo bareysay markaas kale waa ka duwanaanaysa ardada kale ardayga maanta ka baxay Puntland waxa laga yaabaa ardayga ugu fiican in afarta class dugsiga sare hal macallin oo laga yaabo inuu u soo dhigo kan kalena waxa laga yaabaa in dugsiga sare laba class kamid ah oo macallin u soo dhigo laakiin anu waan ka duwanahay macallimiintayda ayaa inta la soo jeeday dugsigayga hoose dhexe sare alxamdulillah waxyaalaha aan uga duwanahay ardada kale waan u mahad celinayaa barayaashayda sharafta leh macallimiintayda dabcan waxay ma bari jirin kaliya laakiin mar walba way dhiirigelin jireen waxay dhihi jireen mar walba waa sameyn kartaa waana gali kartaa meeshaas waa gaari kartaa aqoonteeda waa leedahay aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. marka saddexaad waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo iskuulkayga hambaliyo badan waa layla soo wadaagay waan ka guddoomay hambaliyada quruxda badan intii ila soo wadaagtay ha ahaato inta ku abtirsata bahda Xaaji Cali Bixi ha ahaato inta ku abtirsata bahda gobolka Mudug ama ha ahaado qof kale oo ila soo gaclooda hambaliyada dhamaantiin waa idin ka guddoomay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxa haray markaygii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo iskuulkayga Xaaji Cali Bixi dadaalka muuqda iyo kaalinta uu ka galay Puntland oo uu ahaa iskuulka afraad gobolka Mudugna inuu hogaamiyo dabcan farxad aad u weyn ay tahay gobolkayga aan ku soo barbaaray aan waxbarashadeeda ku soo qaatay in maanta iskuulkayga iyo aniga aan hogaaminayno anigu ma hogaaminay keligay laakiin aniga iyo iskuulkaygaba aad ayaan ugu faraxsanahay. waxaan kaloo u hambaliyeynayaa ardaydii aan isla ahayn dufcada 17aad dadaal aad u badan bay muujiyeen aad ay kaga duwanaadeen arday badan ama iskuulo kale ka qanjabisay ama iskuulkaanba waxaan leeyahay hambaliyo dadaalka muujiseen waa dadaasheen dhammaantiin ardayga ugu sareeya iyo midka ugu hooseeya dabcan cid hooseysa ma jirto laakiin darajada baa kala sareysa waxaan leeyahay hambaliyo waad guuleysateen guushiina hore u sii wada insha Allah waxaan aad u jecelahay inaan sii wada joogno inta aan sii wada joogi doonana insha Allah qalbiyada idinka jecelahay marka la oo hambaliyeynayaa iskuulkayga Xaaji Cali Bixi waxaan u hambaliyeynayaa gobolkayga Mudug waxaan leeyahay iskuul top ah idin hogaamiyay una u qalmaa inuu idin hogaamiyo aad ayaan u mahadsantihiin dhamaantiin. waxaan rabaa in aan ka soo jeediyo maansayar oo ay leeyihiin abwaaniin Soomaaliyeed kuwaas oo ka hadlaya ama kamid ah waxyaalaha isku dhiirigelin jiray dabcan marka anigu xaafadayda joogay waxa jira waxyaalo gaar ah ahaa erayaan adeegsan jiray waxa kamid ah erayadaan adeegsan jiray gabayaan meel ka maqlay oo laba wax oo kamid ahaa laba tuduc ayaan aad uga helay oo waxay ahaayeen waan xasuustaa waxaan ku qortay gurigayga dhexdiisa guusha kaama dheere guuree habeen socod dabcan adiga dadaalkaaga inaad la timaadid guusha aysan ka dheerin ay meel dhow ku taalo. waxa kale oo kamid ah gabay aan ka maqlay wiil arday oo tirinaya ka arkay YouTube-ka wiilka magaciisa ma garanayo laakiin dhahay in kamid ayaan ka helay oo dhahaysa ha isdhihin waxba adag dabcan wax adag ma jiraanba waxaan kaloo arkay inaan dhihi jiray mararka qayb waxyaalahaas way adag yihiin ama arday aan la wadaagi jiray cashar hiblaayo uu adag yahay laakiin markaan akhriyo uu ii fududaado ayaa waxaan isdhihi jiray isdhihin waxba adag wax adagba ma jira in adigu ku dadaasho ma ahan
marka waxyaalahaas waxay kamid ahaayeen waxyaalaha aan isku dhiirigelin jiray waxa kale oo kamid ah waxyaalaha aan isku dhiirigelin jiray gabaygan waxa iska leh abwaan laab saalax darajiye karaamoy marna deeq ilaahay marna duubka sharaftay guulay dagaal badan qof halla ku daydaya damac la ku raadsada dadaal baa ku soo hela qolof diin yeesho damqashiye axdaaya dulqaad kuwa ilaashay kuma sida qof damacsani taariikh baa dambaysay ha ka tagin wax laga dido gabaygan kale waxa leh abwaan la dhaho qariyaan seko sidoo kale asna wuxuu kamid yahay waxyaalaha aan isku dhiirigelin jiray oo aad ii kicin jiray sidii hadiyad guushu maaha hadii aad u heelanaanin hadiyo jeer aad dadaalin halkaad rabta gaari maysid waxaad ku ogeyd hubaasha inaad helayso xaqiiq ah hayaamin hadii aad weydo waxaan dhihi jiray yani hadii adigu waa dadaashay hadii aad guuleysan weydo ma ahan inaad isliidid ma ahan inaad yaabtid yani waa inaad ku qanacdaa hadaad ku hungowdo kaalin hareer kale soo tijaabi hilaadi ujeedadaada hayaan bar naftaada jiifta horu socod tala ku gooso hirkiya buuraha hortaagan humaag weeye hayeelin hankaadu inuu walaaco intaas waxay kamid ahaayeen waxyaalaha aan isku dhiirigelin jiray mar kale aad baan ugu hambalyeynaya gobolkayga iyo iskuulkayga Xaaji Cali Biixi oo hogaaminayo waxaan leeyahay hambalyo iskuulkayga aad baa u mahadsantiin dadaalkii ay soo galiseen iyo aniga iyo dhammaan intii kale oo ka qalin jabisay wax yar baan idin abaalgudnay ma ahane abaalkiina ma gudi karo ilaahay magaciina kor ha ka yeelo aad baa u mahadsantiin howlwadeenada iskuulkayga macallimiintayda sharafta leh dabcan waan la ilmeeyaa wallahi marmarka qaar abaalka ii galeen macallimiintayda ma ahan inay kaliya wax soo bareen laakiin aad ay ii dhiirigeliyeen waxa dhici jirtay xilligii iskuulada fasaxa ahaayeen oo cashirka lagala socon jiray khadka in macallimiinta qaybtood intaan su'aalo u diro aan weydiiyo ay iiga soo jawaabaan isoo wacaan waqti igu bixiyaan aad ayaan ugu mahadcelinayaa macallimiintayda waalidkayga labaad oo mahadsantihiin baan leeyahay gurigayga labaad Xaaji Cali Biixi aad baan ugu hambalyeynaya hambalyo marka aan ku faraxsanahay inaan hogaamiso